بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد maanta waxaanu shirka jiraayad u qabanay inaanu ka hadalno arrin maalmahanba magaalada Hargeysa ka dhex taagnayd iyo guud ahaan ma garanaysaa meelaha warbaahinta iskugu timaado taasoo ah kiniisad dib looga hirgelinayo magaalada Hargeysa waxa nasiib darro ah in inaga oo 100 sano gumaysiga ka soo baxnay 70 sanadood muddo ku siman oo gumaystihii dalka haystay ee Ingiriisku kiniisadan uu ka hirgeliyay lamaynu yaabanayn waayo waxaynu ahayn dad la leeyahay waxa tihiin dad la haysto oo gumaysi ku jira waxaynu ahayn unrestricted freedom baynu ku jirnaa waxa la yiraahdo mutlaqul xurriya ayaynu maanta haysanaa amba xurriyad dhammaystiran oo taama lamaynu yaabanayn dawladii kala dambeeyay Soomaaliya wixii la isku dhan jiray soo maray waayo iyaga gumaysiga kuwaas ka sii darnaa dhaqanadooda iyo waxay ku kacayeen marka aragto balse waxa nasiib darro ah inagoo oo ah maanta dawlad xor ah iyo dal xor ah inaynu maanta u hunguro raacno aba u go'an raacno soo celinta iyo dib u dhisidda iyo dib u furista kiniisad lagu hirgelinayo amba laga faafinayo diinta islaamka ahayn taasoo ah diinta kristaanka dhawaan waxa dalka timid gabadh missionary markii waa dadka fidiya diinta kristaanka timacada Allah u naxariisto wuxuu lahaa isticmaalkii waagiisa soo socdaal celi sawirkan biyo hoos u galay sabix mooyaane waqtigu gumaysigu tagaad barigan moodaa imika waxaanu moodnaa xilligii gumaysigu uu dib u soo noqonayo oo sidan laynoo haysto oo kale iyo diimaha laynaga fargelinayo iyo waxaan nagu socdo oo dhan ku sii darintan lahaa uu hadraa wiiri ku sii dil ayuu lahaa ninkii digashada badnaa kiniisadda oo la furaa waxay Soomaaliland ku keeni kartaa afar arrimood wata koowaad khalkhal amni bay u horseedi kartaa khalkhal diimeed mid dhaqaale iyo mid aan la ka fogaansho afarta arrinba waynu ka dhaxli karnaa inagoo teenii horeba la tabaalaysan haddaan nahay ururkan dalsoor la yiraahdo waxaan u damqanaynaa dadka dalka iyo diinta intaba la xijeclaa naga haysa mustambeed ayaanu nahay mustambaa nin weyn laga metelay waanad maqasheena aanaynan xumaan maaganahay haw malaynina diinteeduna waa islaam balaada dhigayso diinteeduna waa islaam dalkayguna waa mid qura ul iyo diir baanu nahay dalkaygana waan jeclahay diinteeduna waa islaam dadkayguna waa mid qura ul iyo diir baanu nahay dalkaygana waan jeclahay xumaha waan diidanahay damiir nool baan sitaa samaha waan doonayaa ninkiina dilaalayiyo ninkii dabadhilifihiyo ninkii dana kala lahow adaa isdoqaynaya dan iyo waa yeelkada anagu waan diidanahay ma doonaynaanu nuri u geed dagalkaad rabto iyo halkaad u dabraysan tahay waad mahadsantihiin